بسم الله السلام عليكم سؤال ساعات القناه waxaan rajaynayaa fiicantiin soo dhawaad phone addiction daroogada casriga ah qabatinka telefoonka daawashada xad-dhaafka ah ee baraha bulshada iyo telefoonka horta bas weydiisay habeenkii markaad fadhiisid maqaayadaha nololka maxay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta jooga ay u wada fooraraan waxaa jira daroogo lagu iibiyo maanta si bilaash ah daroogada casriga ah maahan kaniini aad cunaysid laguma nacaabo dhalo laguma duro jirka laakiin waxay qabsatay maskaxda dhalinyarada maanta isticmaalka faraha badan ee telefoonka phone addiction waxaad moodaa telefoonka inaad adigu isticmaalaysid balse laakiin runta waxay tahay telefoonka inuu adigu ku isticmaalayo maalintii oo dhan adigoo shaqo leh howl ku taalo ayaad waxaad isleedahay hal video hal scroll daqiiqado yar oo entertainment qaado laakiin waxaad arkaysaa adigoo saacado fara badan ku lumiyay oo dabaalanaya scrolling baraha bulshada maalin kasta waxaad ku haysaa saacado fara badan oo wax ku qabsan lahayd noloshaada wax ku qaban lahayd waxaad waqtigaaga energy-ga ku gubaysaa telefoonka gacantaada ku jira in ka badan 80% rayada maanta nool telefoonkooda ayaa isticmaalaya waxaa jira wiil dhalinyaro Soomaali ah kaasoo la hariyay waaweyn hami sare higsi fog wuxuu rabay inuu ganacsi bilaabo quraanka uu xifdiyo jirkiisa uu dhiso naftiisa wax u qabto familkiisa uu horumariyo nin wax qabsaday waalidkiisa sharaf siiyay dadkiisa oo dhan ay ku faanaan laakiin maalin kasta wuxuu oran jiray berita ayaan bilaabayaa oo waqtigeeda lama gaarin weli berigaasna weligiisa ma usan imaanin sababtoo ah maalin kasta hadaad beri dhahdo beridaasi weligeed imaan mayso sababtoo ah 8 saacadood oo TikTok ah Instagram Facebook YouTube Shorts iyo saacado fara badan oo ah adigoo daawanaya nololaha dadka kale sidee uu qofku u dhisi karaa noloshiisa asigoo daawanaya nololaha dadka kale horumaray sidee macquul ku tahay qof inuu 8 saacadood 10 saacadood maalintii iyo ka badanba uu ku lumiyo daawashada dadka kale noloshooda halkii uu ku dhisan lahaa waqtigaasi noloshiisa iyo naftiisa maanta dhalinyaro fara badan ayaa noloshaasi ku jira waxaan dareemaynaa daal waxaan dareemaynaa niyad jab wareer isku buuq iyo stress haddana ma garanayno waxa maskaxdeena cunaya wax daalkaas inagu sababay waxa ina wareeriyay laakiin si aad uga baxdid jahwareerkaasi aadna u ogaatid dhibaatada ku haysata su'aashaan isweydii maskaxdaadu telefoonkaaga ma iyada isticmaalaysa mis asiga ayaa maskaxdaada isticmaalaya energy-gaaga telefoonka ma adiga isticmaalaya mise asiga ayaa ku isticmaalaya saaxiib soo dhow maanta kama hadlayno qalab lagu wada xiriiro ee waxaan ka hadlaynaa daroogada casriga ah qabatinka telefoonka phone addiction ku soo dhawada videogeena maanta qabatinka telefoonku ma ahan kaliya madadaalo waa hab system cilmi ah oo loo dhisay in maskaxdaadu ay qabatinto daawashada xad-dhaafka ah ee baraha bulshada kaasoo mar walba aad ku sii dhex jirtid ku siinaya dopamine dheeri ah maskaxdaada waxaa lagu xiray dopamine addiction dopamine-kaasi kaasoo ka dhalanaya inaad daawatid isticmaashid telefoonka gacanta aad ku haysatid maanta oo dhan shirkadaha waaweyn sida Meta TikTok Instagram iyo YouTube waxay isticmaalaan algorithms si ay maskaxdaada iyo energy-gaaga iyo waqtigaaga ay kaaga lumiyaan oo ay kugu haayaan application-kooda waxay lacag balaayiin ah iyo hanti fara badan ay ka sameynayaan si ay kugu haayaan shaashada telefoonkaaga iyo application-kooda shirkad waliba shirkadii ay ka badan tahay dadkeeda oo waqti badan ay ku bixiyaan way ka lacag badan tahay maxaa yeelay isticmaalka telefoonka maanta waa daroogada casriga ah qofkii aanan ku baraarugin oo aanan fahmin midaas wuu la qabsan doonaa oo waa uu ku lumi doonaa oo uu ku sakhraami doonaa isticmaalka faraha badan ee telefoonka iyo baraha bulshada waa daroogada casriga ah ee maanta qofkii aanan fahmin oo aanan ku baraaruginna wuxuu adoon u noqon doonaa shirkadahaasi iyo telefoonkiisa markii aad scrolling sameynaysid telefoonka aad wareejinaysid maskaxdaadu waxay helaysaa dopamine yar kaasoo kugu dhiirigelinaya maanta oo dhan inaad sii wadid si aad dopamine-kaasi aad u ceshitid sida daroogada oo kaleeto kaliya waxay ku kala duwan yihiin daroogada jirkaaga ayay dishaa balse midkan waxa uu dilayaa waqtigaaga dhalinyaronimada waqtigaaga dahabiga ah diiradaada inaad wax focus saartid himiladaada inaad han yeelato iyo sidoo kale xasiloonida iyo kalsoonidaada bal u fiirso dhalinyarada maanta joogta qofba intuu ka badan yahay isticmaalka telefoonkiisa iyo baraha bulshada noloshiisa way ka qaab daran tahay oo way ka xun tahay sababtoo ah qofkaasi waxaa ka dhimanaya hanka iyo himilada kalsoonida iyo naftiisa waxa uu kala weynayaa xasiloonida nafta iyo deganaanta nolosha daraasaadyo fara badan oo la sameeyay laga soo bilaabo 2020 ilaa 2025 ayaa waxay muujinayaan in dhalinyarada isticmaasha social media muddo dheer ama waqti fara badan ay la kulmaan walwal hurdo la'aan xasilooni daro kalsooni la'aan iyo qofkii oo aan wax focus gareyn karin attention span-kiisa oo yaraanaya aynu xaqiiqda ka hadalno maanta waaqica dhalinyarada Soomaaliyeed maanta ay ku sugan yihiin waa mid qayladaan ah run ahaantii waa xaalad aan la qiyaasi karin oo loo dul qaadan karin una baahan in laga hadlo la baraarujiyo oo la fahansiiyo saameynta iyo dhibaatada social media iyo isticmaalka faraha badan ee telefoonka uu ku leeyahay noloshooda
qabatinka taleefanka iyo isticmaalka faraha badan ee baraha bulshada waa daroogada casriga ah ee waqtigan jiilkeena waxa burburinaya baabi'inaya hal abuurkooda aragtidooda himiladooda iyo hankooda wax kale ma ahan ee waa daroogadan casriga ah qofkii aan fahmin oo aan ku baraarugin dabinkaas ayuu ku dhici doonaa oo noloshiisana halkaas ayuu ku dhamaanaysaa sidaas awgeed waa inaad fahamtaa aad ogaataa oo aad ku baraarugtaa dhibaatada ku haysata si aad naftaada iyo noloshaada aad uga badbaadisid daroogadan casriga ah iyo dabinkan dhalinyarada loo dhigay maanta xog aruurin la sameeyay dhamaadkii 2025 ayaa waxay muujinaysaa in dhalinyarada fara badan ee ku nool magaalooyinka weyn ee Soomaaliya ay celcelis ahaan isticmaalaan taleefankooda maalintii 6 saacadood ilaa 10 saacadood waa mucjiso waana la yaab tani kaliya ma ahan waqti lumis ee waa baabi'inta mustaqbalkaaga iyo hankaaga nololeed waxaan aragnaa arday fara badan oo ku dhacaya imtixaanaadkii ku fashilmay waxbarashada sababo kaliya scrolling iyo qabsiga taleefanka iyo dhalinyaro fara badan oo lumiyay xiriirkii qoyska waalidnimadii walaalnimadii qaraabanimadii sababtoo waxay ku nool yihiin duni dhalanteed ah virtual ah oonan xaqiiq ahayn oo ku dhisan kaliya waxyaabo la soo diyaariyay maanta taleefanadeena ayaa inaga yaqaana nafteena iyo nolosheena wuxuu ogyahay waxaan rabno asiga ayaa inoo dooraya waxaan daawanayno asiga ayaa inoo dooraya waxaan jeclaanayno mucjiso iyo la yaab waxa uu haday fikirkeena hal abuurkeena iyo hankeena waxa uu burburinayaa mustaqbalkeena sidaas awgeed cid kastoo aan ku baraarugin dhibaatadan jirta maanta waxay baabi'inaysaa oo ay burburinaysaa mustaqbalkeeda iyadoo aanan dareemaynin sidaas awgeed ma rabtaa inaad ahaatid addoonka shaashadaada mise waxaad rabtaa sayidka taleefankaaga diinteena islaamka waxayna baraysaa qiimaha waqtiga iyo ilaalinta qalbiga alle salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi wal casr ina alinsaana lafii khusr casrka ayaan ku dhaartay insaanku waa mid ku sugan khasaaro alle wuxuu si cad inoo tusay in waqtigu uu yahay hantida ugu weyn ee qofka bani'aadamka uu haysto qofka insaanka ah bani'aadamka ah hantida iyo xoolaha ugu weyn ee uu maanta haysto waa waqtiga waqtigu waa nolosheena waa mustaqbalkeena waa nafteena qofkii waqtigiisa ku lumiya waxaanan micno lahayn oo maalayacni ah wuxuu si tartiib u luminayaa noloshiisa wuxuu baabi'inayaa mustaqbalkiisa iyo qofnimadiisa sidoo kale alle subxaanahu watacaala wuxuu yidhi ina asamca waalbasara waalfu'aada kullun ulaa'ika kaana canhu mas'uula maqalkaaga araggaaga iyo qalbigaaga dhammaantood waa lagu su'aali doonaa oo waa lagu weydiin doonaa micnaheeda waxay tahay wax kasta oo aad daawato wax kasta oo dhegahaaga gala wax kasta oo qalbigaaga gala waa lagu weydiin doonaa oo waa lagu su'aali doonaa dhammaan wax kasta oo maskaxdaada aad gelisid waxaa jirta maalin laga xisaabin doono oo lagu weydiin doono taleefanku maanta waa mashiinka koowaad ee dhalinyarada ka mashquulinaya xuska alle salaada quraan akhriska iyo barashada diinta akhlaaqda wanaagsan ee qofka muslimka waxaa ka mid ah in qofka dhalinyarada uu xajisto waqtigiisa iyo caafimaadka maskaxdiisa oo uu ka taxadiro wax galaya maskaxdiisa iyo jirkiisa taariikhda taleefanadii hore waxaa loo sameeyey kaliya isgaarsiin oo ah dadku inay ku wada xiriiraan oo ay ku wada hadlaan laakiin kadib 2010 ayaa shirkadaha social media waxay tartan u galeen inay attentionka qofka ay lacag ka sameeyaan waxayna u kala tartamayaan oo kala ordayaan shirkadahaasi midba midku ka weyn yahay inuu ka sii haysto attentionka dadka markii ay TikTok iyo short form contentigan ay soo baxeen ayaa maskaxda dhalinyarada waxa lagu tababaray wax kasta inay degdeg ahaadaan dopamine fara badan iyo focus yar taasi oo baabi'inaysa burburinaysana hanka himilada iyo mustaqbalka dhalinyarada maanta dadka badankooda ma awoodaan 5 daqiiqo kaliya inay diiradda saaraan hal shay taasi oo u ah calaamad weyn oo muujinaysa sida uu TikTok iyo short form contentigan ay u burburiyeen mustaqbalkeena iyo attentionkeena xaqiiqada dhalinyarada maanta waxay seexdaan iyagoo taleefankooda gacanta ku haya waxay ku soo toosaan notificationka taleefanka salaadii iyo cibaadadii ayay dib dhigaan buugaag ma akhriyaan ma is horumariyaan fikir qoto dheer ma samayn karaan intaasi oo dhan waxaa sabab u ah qabatinka taleefanka iyo isticmaalka faraha badan ee baraha bulshada waa sababta aan ku leeyahay daroogada casriga ah ee qarniga laakiin online-ka qof walba waxa uu iska dhigaa inuu faraxsan yahay oo ku nool yahay nololtii ugu dambeysay waxay soo bandhigayaan nolol khiyaali ah oo aan dhab ahayn marka qaar waxaad arkaysaa qof social media markaad ka aragtid aad jeclaanaysid noloshiisa inaad ku noolaatid laakiin markaad aragtid xaqiiqadiisa iyo noloshiisa dhabta ah ee saxda ah aad isweydiin doontid subxaanallah qofkan suu nool yahay sidaas awgeed saaxiibka ku luminin noloshaada mustaqbalkaaga hankaaga iyo himiladaada isticmaalkan faraha badan ee taleefanka waxaad ogaataa qof aan maskaxdiisa xukumi karin noloshiisana ma xukumi karo laba lee waayo inaad taleefankaaga uu adigu ku xukumo iyo inaad adigu aad xukuntid article aan ayaa wuxuu qoray taleefanadan casriga ah inay noqdeen cirbad darooga ah taasoo maskaxda lagu diro
taasoo siisa dopamine dheeri ah oo xad dhaaf ah maalin kasta saacad kasta iyo waqti kasta dopamine-kii loogu talagalay in la soo daayo markaad hul adag qabatid aad guulaysatid ayaa wuxuu kugu siinayaa taleefankaaga si bilaash ah oo maalyacni ah sidaas awgeed maskaxda uma dul qaadan karto ma xamili karto waxyaabaha u baahan juhdiga faraha badan attentionka badan howlaha faraha badan ma u dul qaadan karto mana xamili karto taasi oo ku tusinaysa maskaxdada inay daroogaysan tahay qabatinka taleefanka daroogadan casriga ah dhibaatada inagu hayso waxaa ka mid ah fokaska dhallinyaradeena oo baaba'ah salaada iyo cibaadada oo naga yaraada hurdo xumo waqti lumis niyad jab iyo walwal joogto ah oonan dhammaad lahayn isbarbardhig joogto ah iyo kalsoonida nafteena oo burburta oo baaba'da faa'iidooyinka aad ka heli doontid markaad taleefankaaga u isticmaashid si sax ah oo quman waxbarasho online ah naftaada inaad ku dhistid noloshaadana aad ku hormarisid xirfado aad ku barato ganacsi inaad ku samaysid lacagna aad ku kasbato dacwada iyo faafinta khayrka taasoo ku horseeda ajir isgaarsiin fudud sidaas awgeed saaxiib taleefankaaga ayaa go'aamin kara noloshaada waxaad ka dhigan kartaa mid aad ku dhistid noloshaada ama mid aad ku burburisid noloshaada go'aanku adiga iskale daroogadan casriga ah noloshaas ma ka badbaadsanaysaa oo ma iska ilaalinaysaa mise waad isku dhiibaysaa oo waa ku burburinayaan go'aanka adiga ayaa iskale problemku ma ahan taleefanka laftiisa ee waa qofka oo aanan xukumi karin naftiisa taasoo ka dhigan inay naftaada ku xukumayso taleefankaagana uu ku hogaaminayo saaxiib waxay dhegeyso qarnigan dagaalka ugu weyn ma ahan rasaas ma ahan gaajo mana ahan faqri ee waa dagaalka lagu hayo maskaxda dhallinyarada waxaa la iibsanaya attentionkaaga waqtigaaga ayaa la cunaya oo lacag laga sameynaya himiladaada hankaaga ayaa la dilaya weliba adigoo aanan dareemin waxaa noloshaada burburinaya oo baabi'inaya taleefanka gacantaada aad ku haysatid maalin walba waxaad daawanaysaa dadka kale oo noolaanaya waxaa ku cajabinaya oo aad ka helaysaa nolosha dadka kale ee online-ka aad ka arkaysid taasoo kugu khasbaysa inaad noloshaada aad nacdo maskax ahaan waxaad ilowday inaad ku noolaatid noloshaadii inaad dhisatid mustaqbalkaagii waxaa laga yaabaa inaad qoslaysid online-ka adigoo farxasan isa soo dhigaysid laakiin gudahaaga waxa aad dareemaysaa marnaan ibirnimo inaysan waxba kuu toosneen waxba isugu ka aadisaneen in lagaa fiican yahay maalin kasta isbarbardhig joogto ah aan dhammaad lahayn ayaad wadaa nin waqtigiisa dayacay mustaqbalkiisa ayuu aasayaa hawloolan saaxiib hadda waxaan kula wadaagayaa 5 tallaabo oo ficil ah hadda aad samayn kartid si aad naftaada iyo noloshaada aad uga badbaadsatid daroogadan casriga ah ee noqo qofkii samayn lahaa oo ku dhaqmi lahaa 1 samee digital fasting ka soon digitalka maalin kasta 1 ilaa 2 saacadood dami taleefanka gebi ahaanba maskaxdaadu waxay u baahan tahay aamusnaan iyo deganaan si u hesho xasilooni ayna kugu soo saarto fikrado wax ku ool ah noloshaada iyo naftaadana anfacaya sidaas awgeed waqtigaasi maskaxdaada sii oo taleefanka iska dami qodobka labaad ka saar applicationska cunaya waqtigaaga iska tir oo iska delete applicationada waqtiga u badan kaa qaadanaya oo kaa luminaya kuwaasoo burburinaya mustaqbalkaaga iyo noloshaada haddii aadan wada tiri karin xadid oo waqti u sameey qodobka saddexaad ku bedel dopamine caafimaad leh jimicsi samee quraan akhri iska soco qoyskaaga waqti la qaado caalamiintay intaas waxay ku siinayaan dopamine sax ah oo caafimaad qaba maskaxdaadan u run laakiin sida isticmaalka taleefanka iyo scrollinga social media waxay ku siinayaan dopamine darooga ah qodobka afraad ha ku seexani taleefankaaga ka fogow 30 daqiiqo ka hor hurdadaada taleefankan iska fogey si ay maskaxdaada u degto aadna u heshid hurdo sax ah qabow oo raaxo leh qodobka shanaad ee u dambeeya dhis himilo dhab ah qof himilo dhab ah leh scrolling badan ma sameeyo naftaada mashquuli han iyo himilo yeelo akhlaaqda iyo caadooyinka muslimka kuwaasoo xal ku noqon kara hadda waxaan kula wadaagayaa akhlaaqda iyo caadooyinka qofka muslimka laga rabo kuwaasoo xal ku noqon kara adiga ku badbaadin kara salaada ku duko waqtigeeda oo ilaali subaxdii waqti hore soo kac oo samee quraan akhris joogto ah maalin kasta jimicsi iyo nadaafad noqo qof nadaafad leh oo jimicsada waqti badan la qaado waalidkaaga walaalahaaga iyo qoyskaaga guud ahaaneed ka fogow waxyaabaha qalbiga wasakheynaya ilaali oo qalbigaaga nadiifi isla xisaabtan maalin walba ah isweydii maanta ma waxaad qaadatay dopamine toxic ah mise waxaad qaadatay dopamine healthy ah hadda waxaan kula wadaagayaa faa'iidooyinka dhabta ah aad noloshaada ka arki doontid aad heli doontid markii aad ka adkaatid phone addictionka ka badbaadisid naftaada iyo noloshaada daroogadan casriga ah waxaad heli doontaa focus xooggan maskax degan hurdo caafimaad qabta
oo fiican, iimaankaaga oo sare u kacaya, wax soo saarkaaga shakhsiyadeed oo kordhaya, kalsooni nafeed oo xad dhaaf ah aan la jebin karin. waxaad heli doontaa nolol dhab ah oo macno leh. saaxiib hal mid ogow, dadka ugu guusha badan maanta waxay ogaadeen ama ay fahmeen sida loo ilaaliyo attention-kooda. sababtoo ah wax walbood attention-kaaga aad ku bixisid ayaa mustaqbalkaaga iyo noloshaada qaabayn doona. adiguna midaas fahan oo ku dhaqan si aad uga mid noqotid guulaystayaasha insha allah. saaxiib, haddii aad rabtid maskax degan, akhlaaq wanaagsan, iimaan xooggan iyo nolol leh himlo dhab ah, hadaf iyo hiigsi nololeed aad lahatid, ku soo bir SG Community. waxaan rabnaa inaan dhisno dhallinyarada Soomaaliyeed kuwaasoo aanan taleefankooda xukumin, waqtigooda ilaashanaya, diintooda ku nool, naftoodana horumarinaya. qaran xoog leh waxa uu ka bilaabanayaa dhalinyaro maskaxdooda ay xor tahay. sidaas awgeed waa inaan noqonaa dhalinyaro maskax furan, xor ah, kuwaasoo hankooda iyo himiladooda bursanaya oo u dadaalaya. hadda waxaan ku weydiinayaa su-aasheedii ugu dambeysay. haddii taleefankaaga lagaa qaado toddobaad muddo isbuuca, ma haysataa nolol ka baxsan iskriinka? aad iyo aad baan u mahadsantihin asxaabtayda qaaliga. waxaan rajaynaa aad fahanteen daroogadan casriga iyo saamaynta nolosheena ay ku leedahay, aadna ka badbaadsan doontaan naftiina iyo mustaqbalkiina insha allah. waxay noo ballanaa videogan video xiga. subscribe saar, like saar videoga, u sheergarey saaxiibkaaga oo raba inuu fahmo daroogadan casriga ah insha allah. waxay noo ballanaa videogan video xiga. kusoo bir communitygan SG Community. halkan waxaa lagu dhisayaa dhalinyarada noocaaga oo kale ah, kuwaasoo maskax furan, aragti fogna nolosha kale insha allah. subscribe saar, like saar videoga, sheergarey. waxay naga caawinaysaa inaan si fudud u korno. kulanti dambe oo xiise leh. waxay noo ballanaa videogan video xiga insha allah. maca salaam.